bilaabatay law for enforcement operation iyaga oo ka cararaya kelmadda conflict iyo kuwa kale oo la mid ah oo xukuumadda abiy diidan tahay warqadda marka ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda waxaa loo adeegsaday kelmadda conflict halkii laga adeegsan lahaa law enforcement operation sida Ethiopia doonayso arrintaas waxa ay kala siman yihiin ama uu kala siman yahay wasaaradda arrimaha dibadda kala siman tahay madaxweynaha Uganda oo sidaas si la mid ah u tiray qoraal uu soo dhigay fartiisa kadib markii Ethiopia u muujisay in ay eragaasi u dhibayo dowladda Ethiopia wasiirka casilaadiisa isku soo wada duubo arrinka oo sababsaday waxa ay tahay warqadaasi oo u muuqatay mid dhexdhexaad ka ah waxa socda dowladda Ethiopia waxa ay doonaysaa in ayada lagu garab noqdo oo dagaalka ama lagu garab siiyo ama laga aamuso dhanka kale waxa baraha bulshada qabsaday oo ay oromada iyo tigreegu ku maadeysanayaan kilib yar oo laga helay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo baqdin muujinaya isagoo ku jira xafiiskiisa muuqaalka meel walba la wareejinayo waa muuqaalkan asagoo qudbeenaya oo hadlaya ayaa mar qur ah jawigu isbedelay waa uu baqay xagga dambe ayuu fiirshay laakiin markii uu dareemay in kaamiro hortiisa taalo ayuu qaladna uu dhaxda ka taagan yahay oo baqay lagana dareemayo muuqaalka ayuu qoslay ra'iisul wasaaraha Ethiopia muuqaalkaasi ayaa la wareejinayaa meel walba waxaana lagu macnaynayaa sida uu tigreega uga baqayo abiy ahmeddaas qaaday xumba cuskay ayaa la dhihi jiray waxa ay leeyihiin tigreega ku maadeysanaya abiy ahmed adaba uu daba dhigtay meel walbana uu ka dabagalayo kuwa ciidanka kamid aha oo leeyahay la soo xirxiro kuwa hay'adaha caalamiga ka shaqeynaya oo ugu dambeeyay ninka ka shaqeeya hay'adda caafimaadka adduunka oo ku eedeanayo inuu taageerayo TPLF waxa la leeyahay wuu khalkhalay oo waa isku dardaray waa isku dhaxyaacay marka waxay leeyihiin taas waxay marag ma doonto u tahay darbaaxada kulul ee ku dhacday dowladda federaalka Ethiopia waxa lagu soo lifaaqaya muuqaalka abiy ahmed hadal uu dhawaan sheegay madaxweynaha maamulka Tigray ee uu ku yiri labada kale talis magaalooyinka ama labada magaalo ay ka soo duuleen ayaynu ugu tagi doonaa meel walba ciidanku galaana waa ka dabageli doonaa marka abiy waa uu qalqalay ayaa la leeyahay dagaalka Ethiopia marka waa dagaal yaab leh maad iyo xasuuq iyo baroor ayaa isla socda arrinta kale ee qosol kale waxa ay tahay taliyaha ciidanka Ethiopia ayaa hadlay oo waxa uu yiri nimankii TPLF madaxda ka ahaa ee aan ugaarsanayeen duqeynaynay waxa ay galeen ayuu yiri kaniisadaha